بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا الصوماليد ملك جوجتان بإله سبحانه وتعالى يكون ما يلو عدي بندبك الله كقاضي عدي دن الله وفيه انت باهن الله ديقو انت بوكتا الله بوكسيو intii dhimatay Allah u naxariisto, waalidiinteen Allah u naxariistaa, annagana Allah nooga daba naxariisto. dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. waa qodobka koowaad ugu dambeyn dalkii oo aaday doorasho kelmadaan ka oranaya. waa qodobka labaad isku daygii in gado maamul goboleed lagu dhiso iyo xogihii ugu dambeeyay iyadana kelmadaan ka oranaya. saan la socono madaxweynuhu wuxuu wajahaya saddex arrimood midkood inuu talada dhexda dhigo, shirkii uu ku baaqay uu qabto, waligii ninkaasi ballan uu qaaday ma fulin. hadda ka horna dhowr jeer aan idiin sheegay lagama yaabo ballan uu qaaday inuu fuliyo. shirkii uu ku dhawaaqay dhowr usbuuc ka hor fara kuma jiro, jaantaar rogan baa ka dambeysay. madaxweynuhu wuxuu soo ururiyay maamul goboleedyo saddexa iyo maamul goboleedkii cusbaa SSC Khaatumo. waxa uu dhammaantood ku khasbay inay xisbi ay wada galaan uu isagu madax ka yahay. Zameen Twin Towers oo ka kooban laba tower waxa uu ku yaalaa xaafadda Parkland, gaar ahaan Ring Road. waxa uu saaran yahay xaafadda Westland. gurigan waxa uu ka kooban yahay 4 qol iyo qolkii shaqaalaha ee DSQ-ga, musqulo, jiko iyo balkoono. gurigan waxa uu leeyahay adeegyadii oo dhan sida 4 lifti oo tower walba uu leeyahay CCTV camera, security 24 saacadood, motor, ceelbiyood, parking, masaajid, dugsi quraan, goobaha carruurta ay ku ciyaaraan, farmashiye, supermarket iyo dhul weyn oo loogu talagalay in dadka degan guriga ay ku lugeeyaan. waxaa gacanta ku haya dhismaha gurigan culimo u diin Soomaaliyeed oo horey u soo dhisay guryo waaweyn. ka faa'iideyso fursadda guriga Zamiil oo la iibinayo qiimo aad u macquul ah oo ku raali gelin doona. fadlan la xiriir ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaga muuqda. Zamiil Twin Towers. saddexda maamul goboleed koonfur galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug midkoodna legitimacy ma haysto, macnaha mandate ma haysto. xilligoodii waa ka dhamaaday, muddo xiloodkoodii waa dhamaaday. haddii haddeer saddexdoodaba lagu dhawaaqo madaxweyneyaal kale oo ku challenge gareynaya isla magaalooyinka ay madaxda ka yihiin, waxa ay ku doodaan oo ku dagaalamaan oo ay yiraahdaan anaa madaxweynihii xaqa ahaa ma haystaan. madaxweynuhu unilaterally isagaa yiri kororsada muddada anaa idin kordhiyey, mana laha legitimacy-ga, awooddaa ma laha isagu. dadka meesha degan baa iskale. hadday ku dhawaaqaan madaxweyne kale inuu Hirshabelle madax ka yahay, Cali Guudlaawe waa ku daayay. hadday ku dhawaaqaan qoorqoor madaxweyne aan ahayn ay ku dhawaaqaan oo meel kale ay ka magacaabaan, qoorqoor kama xaq laha, kaa iyo isagu u siman yihiin. sidoo kale lafta gareen khasab baa lagu soo geliyey iyo gacan maroojis iyo waa ku weeraraynaa, isaguna saasuu ku joogaa. muddo xileedkiisiina waa dhammaaday. haddii maanta mid kale lagu dhawaaqo, lagaga gees dhawaaqo magaalada Baydhabo, wuxuu kula diriro ku dagaalamo ma haysto, legitimacy ma leh. madaxweynuhu marka si rasmi ayuu wuxuu u dilay wixii la oran jiray madashii qaranka, iyadoo ay maqan yihiin laba maamul goboleed oo ah Puntland iyo Jubbaland. madaxweynuhu wuxuu wajahayay qodobka labaad oo uu wajahayay wuxuu ahaa in la isla aado Kampala oo isaga iyo darafyada ay hayaan, oo haddeer ay muuqato 3 daraf oo kale. madaxweyneyaal baa tartamaya dabcan sida ii muuqata, asagu group hogaaminaya. sidaad aragtaan warqadaas waxaa ka muuqda 15 qof oo uu hogaaminayo qofka 16aad oo ah Sheekh Axmed oo madaxweynihii hore ah. waxaa isaguna dhinac jira Farmaajo madaxweyne hore, Deni madaxweynaha Puntland. madaxweyneyaasha afarta ah sida inta la hubo haddeer baa tartamaya oo u muuqda 4 daraf oo ku tartami doona ama ku loolami doona kursiga 2026. ma Kampala loogu garnaqi doonaa mise madaxweynuhu optionka saddexaad buu aadi doonaa oo ah inuu iska indhaadaygo oo lagu diriro? warqadaa sida idinka muuqata ay Shariif iyo soo saareen ra'iisul wasaarayaashii hore iyo wasiirro hore
iyo kandideedyo hore rag hore madaxweyne u tartamay oo hore murashaxiin hore kulligood waxay ku qoreen halkaas ka muuqata in madaxweynuhu uu ku suntan yahay musuq inuu gabi ahaanba ku fashilmay serviskii dowlad looga baahnaa oo uusan waxba u qaban karin ummadda 3 in ciidamadii gabi ahaanba ay dhumiyeen moralkii iyo awooddii ay lahaayeen oo iskaga dhicin jireen argagixisada 4 in dalku qarka u saaran yahay argagixisa la wareegto waxay sheegeen dhulkii laga qabsaday sanad iyo bar ka hor intiisii badnayd inay dib u qabsadeen intaa waxaa sheegay 16 nin oo wada jilib culusta ah qodobka ah marka isaga iyo 4 daraf waan hadda sheegay oo 16 kaanu garab yihiin isaguna garab yahay iyo dhowrkiisa maamul goboleed iyo ciddii raacday ninka liya dani iyo ciddii la socotaa uu garab yahay farmaajo iyo inta la socotaa ay garab yihiin dani iyo axmed madoobe waa hal garab waa isla socdaan taa ogaada waa xogaan idin siinayo waa isku garab hal garab wey farmaajona waa garab ma waxaa loogu garniqi doonaa Kampala 2 sida madaxweynuhu uu sheegi jiray yaan la isla aadin halkaas isagoo ku handadaya madaxweynihiisa isaga ka horreeyey mise intuu indha adayga iyo sharci dumiska iyo burburinta iska daayo buu talada dhexda dhigi doonaa teendada tartiib loo aadi doonaa inta waqtigu ka dhamaan maalin loogu dari maayo warqadda waxa ku qoran ninka lagu eedeeyay maalin loogu dari maayo waxa maalin loogu dari karaa dowladnimadii oo socoto oo soconaysa nin jooga oo sii jooga waa loogu dari karaa oo dowladnimada ay socoto hadday ciidamadii burbureen waxa la wixii dalku lahaana la boobay musuqaas ay sheegayaan oo hadeerba ka socdo wali dalkii ka socdo laysla sugi maayo legitimacyga maalinta uu mandate ka dhamaado madaxweynkiisu dhamaado cidna kama xigo dadku ka mid yahay shacabka hadeerna wuxuu noqday daraf ka mid ah darafyada wuxuu ka degay kursigii dhexdhexaadnimada iyo odaynimada iyo in isaga lagu soo aruuro faruhu ka qaaday xaggaas u aaday intaan waqtigu ka dhamaan yay ku eg tahay inaad doorasho ka shaqaysid intaan lagu yeerin oo inta laga qaado oo laga wareejiyo aan cid kale gacanta laga saarin inaad adigu si gobonimo ku jirto sidii waagi horeba aad u diyaar garowday doorasho xilkana aad wareejisid haddii laga guuleysto haddii aad guuleysatidna aad sii wadatid hawshaada waa talo kuu taal qodobka labaad madaxweynuhu markuu ku fashilmay dagaalkii Jubbaland waxaa la siiyey talo mahad salaad baa taladaa la iiga sheegay inuu lahaa Jubbaland kale ku dhis gobolka Gado ilaa iyo hadeer waxay soo gaartay madaxweynuhu talada degdeg uma qaato waxay ku soo gaartay iyadoo la isku haysto yaa madaxweyne ka noqonaya oo weliba qabiil ah mareexaan baa ka noqonaya way soo ogaadeen isaga iyo ra'iisul wasaaraha waa ku kala fikir duwan yihiin ra'iisul wasaaruhu wuxuu rabaa in ogaadeena loo dhiibo madaxweynuhuna wuxuu rabaa in mareexaana loo dhiibo waa gart reer gadood marka maxay rabaan reer gadood 3 arrimood bay iyaguna wajahayaan inay noqdaan maamul go'an oo ka go'an Jubbaland oo dawladda federaalka hoostaga oo gobol ahaan u hoostaga waa qodob inay noqdaan maamul goboleed nin ogaadeenihi ka taliyo gadana ay tahay saldhigiisa iyaduna waa qodobka saddexaad waa inay noqdaan maamul goboleedkii Jubbaland oo nin mareexaana ka taliyo ujeedada laga leeyahayna waxay ahayd markii madaxweynahaas la magacaabo in dawladdu aqoonsato caalamkana la yiraahdo kana sax la shaqeeya baarlamaankii xagga lagu dhiso ka kalena la isolation inta lagu sameeyo kadibna maalinta dambe la taqantaxeeyo waxaan ogaaday oo xogtaan baaritaan aan sameeyay ku ogaaday mareexaan inaysan diyaar u ahayn labada qodob oo hore midna nin ogaadeena oo Axmed Madoobe bedelo oo Gado fariista yeelimayaan nin inay maamul hal gobol oo go'an noqdaan yeelimayaan hay rabaan Axmed Madoobe maamul lagu bedelo nin mareexaanana madax ka yahay sida iyagu intooda badan oo siyaasiyiinta la hadlay ay rabaan waa sida xasan muxuu samayn doonaa hadda se maadaama uu dhinac noqday oo garab noqday gaara arintaas uu ku sii socon karaa oo ma laga yeelayaa maadaama uu yahay nin doorasho doon oo kursi doona oo sheegay inuu murashax yahay xisbina matalo legitimacy ma haysto ma isticmaali karaa awoodda dawladda oo hawshaa ma ku dhaqaaqi karaa waa maya dastuurka jabintiisa iyo burburintiisu caan buu ku yahay madaxweynuhu
afar qodob buu wax ka bedelay intuu yidhi dastuurkaan dhamaystiraya afarta qodob baa shaati uu tolanaya ahay bal waxaa eegtaan qodobka halkaa ku qoran fiiriya madaxweynuhu danka lahayn dastuurka sacdiyo waxay ka mid tahay guddoomiyeyaasha ururkiisa marka labaadna sacdiyo waa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya qodobkaasi wuxuu u diidayaa inay xisbi ka tirsanaato iyada iyo isaga midkoodna danka male dastuurka markay cid kale ku eedeynayaan ba waxay dhahaan dastuurkaa la jebiyey dastuurka hala raaco dastuurka hala raaco markuu hadlo ugu horreysa dhegeysta dastuurka buu ka hadlayaa hadduu dastuur xukumo oo ilaalinayo oo u dhaartay oo wixii uu u dhaartay uu fulinayo maxaa sacdiye ku daray guddigiisa garanay lafta gareen iyo qoorqoor iyo gacmaha laga maroojiyey sacdiye maxaa ku daray xaggee bay u socotaa oo waxay ka tanaasulaysaa kursigii oo warkaa waa in la doortaa guddoomiye ku-xigeen koowaad ee baarlamaanka maadaama ay jabtay labaday mid luus garaynaysaa keebay waayeysaa ma doorashaday aadaysaa oo kanay ka baxaysaa xasan danka male dastuur marka maadaama uusan dastuurna danka lahayn federaalismkii lagu heshiiyeyna uu ka baxay gado waxba uma yaalaan qodobkii marka ahaa isku daygii gado in maamul lagu dhiso waa fashil isaguna unilaterally isagoo qof ah tartamaya oo darafyada afarta aan sheegay midka ah xaq uma le mana aqbalayaan dadka degaanku inay aqbalaanna sax maaha maxaa yeelay waa qof shakhsiya oo xisbi ka socda xisbiye kalaa jiri doona oo ay dhici karto inay xilka qabsadaan kuwaan inay la xaajaystaan iyaguna xaq bay u leeyihiin marka maadaama uusan legitimacy haysan hadda madaxweynenimo ee ay tahay mandate-ka uun xilkii muddadiisiiyo sanad ka haray officialina maanta ay ugu eg tahay berrina ay bilaabanaysa sanadkii afaraad doorashana la galay isaguna uu horseed ka noqday kuna fashilmay inuu dadka isu keeno iyaguna waa inay ka gaabsadaan oo ay ka warwareegaan buuq iyo dagaal dhexdooda ah inuu abuuro broseskaas aan dhiciska ah oo dhintayba intaanba uusan dhalan buuba dhintay oo waa mayd dead on arrival waxay yidhahdaan weye markuu yimiba mayd buu ahaa ma garan marka intaasaan odhanaya wabillahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu